xildhibaan Axmed Yaasiin Shaqaale ayaa la isaguna dhankayga garabkayga midig xilligan taagan xildhibaan sidee wax u jiraan dalkii qasba la galiyay fawda lagu abuuray madaxweynaha mas'uulka madaxtooyada mas'uulka xukuumadda mas'uulka waxa ka warqabtaan haamihii shidaalka Berbera ee magaalada Berbera ee ummadani lahayd ee kaydkii qaranka shidaalka lagu kaydinayay ee asad iyo hanti ma guurta oo ummadina iska leeyahay oo madaxweynuhu markuu talada qabtay ku faanayay inuu ka wareejiyay gacantii private ka ahayd ama shirkadii Total inuu maanta madaxweynuhu u bareero inuu haddana gacan private dib ugu celinayay taasi waxay ku tahay ummadda lafjab magaciisa dilaysa baal madow ba taariikhda siyaasadeed ee Axmed Maxamuud Siilaay maanta kale waxaanu sida u leenahay lagu baabi'in maayo waa hantidii ummadda la boobayo oo lagu boobayo isla hantidii ummadda waxaanu arkaa nasiib darro weyn oo qarankii ku dhacday gudoomiyuhu wuxuu waafajiyay saaka xeer hoosaadka golaha wakiilada ayuu waafajiyay sida sharcigu ka qabo sida sharcigu ka qabay baanay u dhacday waxay u dhacday in xeer hoosaadka golaha wakiiladu dhigayo hadii mooshin la keeno isla mooshinkii mooshin ku saabsan ma iman karo kal fadhiga goluhu markaa fadhiyo sessionka waxay sugi kari laayihiin hanti boobka ummadda halkay ka marayaan inay kal fadhigan ku xigay inay la sugaan haday mooshin hayaan oo sharci wax ku doonayaan bay sugi kari laayihiin shir gudoonkii way iska can qaadeen maanta defolxumada ugu weyn ee taariikhda 25 sano ee Soomaaliland jirto waxa maanta xukuumaddu soo abaabishay Baasha Maxamed Faarax ku kacay dagaalka uu ka sameeyay golaha wakiilada shirgudoonka gudoomiyuhu dalku leeyahay marka gudoomiyahaasi in uu ku qabsado fed kula dhaco halkii qarankan foolxumo weyn oo abid iyo arag lagu arag soo jireen looma arag integrity bay lumiyeen xilkasnimadii bay lumiyeen dadnimadii bay lumiyeen qarannimadii bay lumiyeen